waxay ahayd shakhsi mar waliba ii muujiya kalgacayl iyo weliba qadarin waxaan xilliga aaminsanaa ama si aan isku haystay inaan ahaa shakhsigii koowaad ee nolosha dhadhankeeda iyo macaankeeda bare Samiira waa sidaan iyada ka dareemay ama si ifafaala arrimahaasi muujinaya ayaan dareemay run ahaantii Samiira waxaan ku wada noolaalay nolol ay ku laran tahay farxad iyo xiise midkaayagaba midka kale ayuu aad iyo aad huba lagu xiise qabay mar waliba waxa weheliyaha sawdka naxariista leh ku dheehan tahay ama ku dheehan Samiira marnaba kama xiise go'i jirin sheekadeeda qaadi salaantaadii quruxda badnayd waxaad weydiisay su'aal waxayna ahayd adiga ma iga xumaatay maxaad iga aamusan tahay aniga kaama xumaan adiga weligeena kaama xumaan mana ihid qof aan ka xumaan karo waayo aniga agteeda qiimo iyo sharaf iyo wanaag ayaad ka leedahay saasay tahana ma taalo wax aan kaaga xumaado waxba igama aadan sameynin haddii aad iga samaysay xitaa aniga ma ihi qofka adiga ka xumaanaha sababtoo ah adiga waxaad ii tahay aniga calaamadii qalbigayga haa waxaad tahay calaamadii qalbigayga baasaboor ayaad u tahay qalbigayga su'aasha kale oo ahayd maxaad iiga dheeraatay haddaad iga xumaan waxaan kaaga dheeraado oon kaaga fogaaday maadaama aa agteeda qaali ku tahay waxaan nacaa inaan isku xumaano sidaa darteed ayaan kaaga fogaaday بدكيو لهاتيو إنا عاود نهباد دمع كل الكوب هرتو لا وعظا قابهاي